ويبلدوغن هبلدوغو دقالو واككيدا حلكي ويبلدوغو دقالو واككيدا بطي ويبلدوغن هبلدوغو دقالو وادوكي لعكتي ويبلدوغو دقالو واككي سامري ويبلدوغن هبلدوغو دقالو واككي درقي بلدوغو دقالو والقي دابركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال إذا لهانتي بكون سود وذا برنامج كجناعسي يدقالها وتضبط كان إذا كيما هي مجال مدح قبل كتقدر برعو. barnaamijka ganacsiga waa barnaamij aalaabaan ku dhiirigelino ganacsatada kala duwan ee reer Soomaaliland ah kuwaasi oo wadankooda aaminay isla mar ahaantaasina ka sameeyay ganacsiyo kala duwan iyo ganacsatada kale iyaga laftoodu maalgashiga ku sameeyay dhulkooda hooyo si ay shaqo abuur ugu sameeyaan dhalinta bilaa camalka ah ulana dagaalamaan tahriibka. magaalooyinka Soomaaliland ayaa si ballaaranaya marba marka ka dambaysa waxaana laga dareemayaa magaalooyinkaasi sida ay ugu fidayaan koonayaasha dhulkii banaana. magaalooyinka dalka ayaa waxa ka socda marka aad u fiirsato dhismayaal aad u tiro badan kuwaasi oo la jaan qaadaya dhismayaasha caalamka. dhismayaashaasi waxa fududeysay tiknoolajiyada iyo nidaamka xadaarada waqtigan waxaana suurtageliyay shirkadaha dhismaha oo ay hormuud ka yihiin injineerada kala duwan ee aqoonta u leh nashqada iyo hanaanka dhismaha.
burco waa magaalo madaxda gobolka togdheer waxaanay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn dhismayaashu uga socdaan iyadoo magaaladaasi muwaadiniinta somalilan ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga ay dhismayaal ka dhisanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey shirkadda Broco Group Construction Company-na waxa ay ka mid tahay shirkadaha dhismaha ee Somaliland waxaanay magaalada Burco ka fulisay dhismayaal aad u tiro badan kuwaasi oo kor u qaaday bilicda magaalada xagga geesta kalena ay shaqo abuur uga noqotay bulsho fara badan oo reer Somaliland دوميها مانيجركا Broco Group Construction Company أحمد آدم فارح أحمد بروكو شركة Broco Group waxaan aasaasay 1999 markii dagaaladii sokeeyay wadanka ka dhacay ee burburka badan u geystay dhismayaasha laga soo kabtay ee la damcayn dib u dhis lagu sameeyo wadanka burburkii ku dhacay iyo in horumar lagu sameeyo guryihii markii hore guryaha gaagaaban la dhisi jiray yaryar dadku iska dantoolida oo la dabcayn horumar la sameeyo maadaama dadkii Yurub iyo xagga inaga qabtay badankooda ay xoogaa dhaqaaluhu wadanku kor soo kacay ayaa waxaan damcayn aan sameeyo shirkad dhisme waqtiga aan idin sheegay markaa waxaan sameeyay dad aqoon xirfadeed leh oo dhismaha aad u yaqaana inaan keeno oo aan shirkadda يعني كشغل جليو شغال وقديقو سيداسان كبلابي شركة وقتها إلى ما يهدنا مركا وحن كبلابي إنا سمايو قريو قناعسيو إنتان لسان ديبو يبيو إيو إنا ندتك كغان دراسة قريوها نعيدي دوني سيني قريو لساتو لبدا قيبت بانسكودي إلى ما يهدنا سيدي بيوسعوتا سنة بنا سنة كدن بيا يكسي بدان تهي أودنا وحن صارنا يعني سوقيني إنا ندتك أولو سنو wax quality leh oo mustaqbalkooda ay u aayaan quality ahaan iyo qurxaano imka guryaha hadda arkaysaan aanu dhisnay mar walbana marka dambeysay ka sii casriyeynaa oo aan hore uga sii marnaa halkii markii hore aan joognay marka qaabkan ku shaqeynaa oo qaabka noocaas waxaanu ka bilownay inaanu dhisno guryo yar oo gaagaaban oo dhaqaalaha wadanku marka halkaas u marayay intii ka dambeysay marba kobcitaanka dhaqaalaha wadanka la jaan qaadayna iyo horumarka marba la tadayuray guryuhu ay ka sii waaweynayaan kuwii hore ama ka sii casrisanaanayaan wadanka adduunka ay la jaan qaadayaan markii hore waxa la dhisan jiray ogeedino guryo afar maqsinaho iska soo horjeedaba dadku iska dhisan jiray waxa jirtay mar laba maqsino iska dabay laba maqsino iska dabagala dadku dhisan jiray sida guryo Ingiriiska oo kale marba heer baa la marayay marka waqtiyadan dambe waxa la gaaray inaanu marba talaabo qaadno markii dambe waxa la dhisay guryo filooyina oo dhaqaalaha dadkuna xoogaa korba u kacay annaguna waxaanu tijaabinay inaanu caalamka ku dhudhoweyno waxyaabaha adduunyada laga dhisto adduunyada horumartay markii dambe waxa la gaaray in guryo sabada la dhisto hadda waxa la marayaa in guryo dabaqyo la dhisto qofkii uu gurigiisa guri dul saaran laba dul saaran saddex dul saaran intuu awoodi karo marka marba heerka la marayo ayaanu annaguna la jaan qaadaynayo aanu doonaynay inaanu dadka guryaha adduunyada ka socda marba aanu kaga dayano nashqadana ka soo qaadano wadamada aynu iminka higsanayno inaynu gaadhno ayaanu nashqada uga soo qaadnaa marka hadda guryo aad iyo aad qurux badan oo ku aragteena guriga madaxtooyadu kamid yahay guryo fara badan oo kale oo shacab ku leeyahay kamid yihiin iyo ishacaynaba oo hodheel weyn oo iyaguna guryahaanu aragteen hodheel weyn oo caalami oo aad iyo aad u maartay bilicdiisa ay aragteen marka guryahaas aanu dhisnay marbana marxaladda la joogo ayaanu ku shaqeynaayo aanu iyo sida marba duruufta wadanka joogta marka maanta halka la marayo waxaanu jeclahay inaan hore uga sii marno oo waxyaabo iminka ka sii horumarsan waxyaabaha iminka la dhisto aanu keenno tallaabada ka dambaysan aanu mid hore ka duwan qaadno waxaa laga yaabaa iminka 2014 guryahan u siray maanta inaan dhisin aan wax ka bedelay marka maalin walbana saasaanu doonaynaa aan wax ka bedelo waxaanu doonaynaa dadka inaan wax tayo leh oo ay ku qancaan u dhisno bilicna leh oo ay maxaan ku dhahdaa wax qofkii uu ku xaragoodo maadaama waxaan dhisayno ay la magac bixeen naanti maguurana
inay noqoto maguuraankii la sheegay oo guryo dee aan qofkii ka daba imanin mar labaadkana dee soo jiito oo bilic leh oo qofkii uu ku qanco inaanu dhisno taasaa naga go-an hadda waxaanu maraynaa inaanu dee tallaabo qaadnay oo si wanaagsan shirkadda iminka u dhaqaaqday waxaanu higsanaynaa inaanu sharaa'iga waaweynee dee adduunyada ka jira inaanu ka mid noqonno oo maxaan ku idhahday aanu horumar ahaan aanu gaadhno gobolada kale wadanka intaanu imika ka shaqeyno hadda dhowr gobol baanu ka shaqeynaa inta kale ee wadanka inaanu gaadhno weliba khaasad inaanu inta kale wadamada kale aanaanu gaadhsiino aynu dariska nahay inaanu shaqada gaadhsiino marka dambena waxaanu higsanaynaa inaanu noqono shirkad caalamiya international adduunyada ka shaqeysa marka hore waxaanu ka bilownay sidaan idinku sheegay horeba inaanu guryaha intaanu dhisno dib usii iibino dadkana aanu ka qandaraasno waxaanu iminka ku darnay inaanu dhulka iibino oo dhulkii oo qof walba meesha uu doonayay aanu meeshuu ka doonayay aanu dhul ugu hayno halkuu doonayay u dhisno taasi waa mid inaanu guryihii ka dhisno dhul badan oo ka mid ah khaasatan magaalada Burco oo iyagana aanu guri ahaan u iibino oo aanu iyagoo dhisan guriyii ka iibino inaanu ka qandaraasno intaba waanu samaynaa marka qofkii doonaya inuu dee dhulka maxaan ku idhahdaa meeshii uu doonayay inuu guriga ka dhisto waanu haynaa dhulkii waanu sii diyaarinaa marka hore ugu talagalnaa inaanu dhul fara badan oo aanu guriga ka dhisno aanu sii iibino marka dhulka iyo dhismaha iyo kontaraadka intaba waanu isku wadnaa marka weliba waxaa iminka laga yaabaa waqtiyadan dambe in haddii ilaahay ka dhigo aanu sii kordhino guryaha ganacsiga ah aanu iminka dhisno oo berigii hore wax la iska dhisan jiray guryaha aan badnayn baa laga yaabaa in dadku guryaha qaaliga ah oo kale waxba laiskuma hawli jirin in la dhisto qofku uu qandara uu iibu dhisto laakiin hadda guryo waaweyn oo filooyin inaan la dhiso qofkii doonayana inaanu dhulka u diyaarino dabeetana qaabku doonaya aanu ugu dhisno oo dadku waa kala dooqo qofbaa doonaya dee gurigan dhisanba mid aan ahayn isagu dooqiis ku nashqadaysto nashqadaha waanu iibinaa inaanu dhisinada samayno dabeetana qofka aanu kala dooransiino markaatuu doonaya dhisno taana waanu samaynaa waxaan jecelahay haatan bal inaan wax ka weydiiyo qaababka ay u sameeyaan dhismayaasha noocyada dhismayaasha kala duwan ay shirkadu samayso injineer Saleebaan Maxamed oo ka mid ah injineerada shirkadda Barako Group Construction Company qaababkaan u dhisnaa guryaha waa qaabab badan oo kala duwan hadday noqoto guryaha nooca shubka ama loo yaqaan fooqyada dabaqyada haddii ay noqoto nooca bangalooyinka haddii ay noqoto baloodhada caadiga iyo hadday noqoto kuwa wax ka sii yaryarba kulli waa la wada socoteen oo soo wada marteen meelihii ay dhismu ka socdeen hadday noqoto wax kuwa dhammaaday iyo hadday noqoto kuwa imika socdaba kulli waa soo wada marteen oo waxyaabo badan ay idin harsanaadaan oo ama ka baxsan gobolka hadday noqoto gobolada kale iyo hadday noqoto degmooyinka oo shirkadu si baaxad leh ay u dhistay dibadda iyo gudaha marka kulli Burco ahaan markaan ka waramayo dhismayaashu aad bay uga socdaan oo magaaladu imika xoog bay u dhismeedu badan yahay haddii aan ka warbixiyo xagga fooqyada gurigii ugu horreeyay aad soo marteen oo ahaa imika 3 dabaq ay saaran yihiin wuxuu imika soconayay muddo sanad iyo bara waxaan uu ku dhoweyay gabagabo waxa imika geli doona kaleedinka muunadii baa ku gabagaba marka kaleedinka wixii ka dambeeyay geli doona guriga kulay qaabkiisu qaab waxa weeyaan ku cusub magaalada oo aan hore noocyadan oo kale looga dhisin shaqaalaha ka shaqeynaya oo iyaguna aad uga hawlgalay oo shaqaalaha aad u wanaagsan oo furfurana ayaa suura geliyay inuu muddo gaaban ku dhamaado gurigaas waxyaabaha aanu imika gobolka ku soo kordhinay waxa kamid ah inaanu u dhisnay isagana sidaad arkaysay gurigii gobolka ama guriga martida gobolka Togdheer waa martida ama ha noqoto madaxweynaha ama ha noqoto waftiyada kale wasiirada iyo goboladu ay markay imanayaan gobolka ay ku soo degaan waanu iyadana sanadkii hore 2014kii aanu dhamaystirnay isagana aanu faraha ka qaadnay aanu habeenkiisii wixii u dhamaystirnay dabaqyada kale aanu magaalada dhexdeeda waxa shubabka aanu ka wadno 5 fooq baan imika magaalada dhexdeeda ka wadnaa oo qaarkood gabagaba yihiin qaarna imika bilowdeen
haddii aan ka warbixiyo xagga guryaha kale fiilooyinkii hadday noqoto dhowr iyo 30 guri baa imika magaalada dhexdeeda ka socda oo ay shirkadu dhisaysaa waxaafadaha kala duwan iyo suuqyada u dhow meelaha ka socda qaababkaasay dhismayaasha horta u socdaan guud ahaan aadna way imika magaalada u dhismaysaa bilicduna kule shirkadu si baaxad leh uga qayb qaataa waxyaabo badan bay markaa ku sugan adeegyada shirkadu imika tusaalahaan kale haddii guri aan u baahdo anagu dhammaystiran oo dhisan in layga iibiyo shirkadu adeegyada caynkaas ma qabataa guryo dhammaystiran oo sadkeedu diyaar oo iyadu dhistay ma jirtaa oo ay iibinaysaa haa way jirtaa shirkadu guryaha iyadoo ahaan sii dhisatay marka hore ugu talagashay iib ahaan way jiraan imikadan qaar badan baa diyaara waana soo arki kartaan marka hore intaan dhisno oo guriga quruxdiisii deetana ayaanu dadka tusnaa deetana markay ku qancaan bay dadku iibsadaan guryaha oo shirkadu sideeda iskaga diyaarisay guryahaan qaarna dee dalabkooday ku yimaadaano dadkay u dhistaa marka qaabo kala duwan bay u shaqaysaa adeegyada kala duwan way badan yihiin waxaa ka mid ah guriga imika oo kale haddii qofku haysto jagadoo kale hadduu haysto gurigii ama qofkaa la yimaada ama shirkaddaa hayso oo guriga qiimaha u raaciso markay dhulkiina iyadu way haysaa magaalo walba xaafad walba magaalada ka mida shirkadu dhul bay ku leedahay marka dhulkaas ayaa ama u dhistaa shirkadiyo iyaga ahaan marka haddaan qofkii guriga dhisanayay la iman dhisme iyadaa u raacisa oo qiimaha ugu darta ama qofkaa la yimaada dhismaha sida waxa kaloo iyaduna jirta shirkadu ay ka shaqaysaa beerahoo kale ayay waxay ku xidhaa shabagyada ama security-ga waxyaabaha loo yaqaan beeraha oo shubabkeeda iyo waxyaabaha way ka howlgashaa oo iyadana way ka shaqaysaa beeruuna way nagu sheegan qorshaa beero badan baanu imika magaalooyinka ka baxsanaynan gaari karin ayaa jira waxaa jiroo kale waxyaabaha kale lagu caawiyo ceelashoo kale baraagahoo kale waan ku caawinaa dadka oo qaarkood caawim ahaan baan ugu dhisnaa qaarkood waan u dhisnaa markaas yaabo kala duwan bulshadana waxbay ku celisaa shirkadu mararka qaarkood hadday noqoto xaggii baraagaa hadday noqoto ceelashay u qodo waxyaabahaasaan u samaynaa bulshada injineer yaxye cali waxaad warbixin naga siisaa kaalinta ay ku leedahay shirkadu dhinaca shaqa abuurka iyo weliba bilicda magaalada adeegyadaas dhismaha waxaa ka howlgala shaqaale aad iyo aad u fara badan hadday yihiin injineero shaqaale bermana oo regular ku ah shaqaday hayaan oo markasta joogta ah oo xafiisyada ka shaqeeya iyo shaqaale iyagu maalna shaqeeya magaalada kalena markay doonaan ka shaqeeya labada nooc buu shaqaalaha shirkadu u qaybsan yahay guud ahaan marka la isku wada daro shirkadda waxaa ka shaqeeya maalintii ka howlgala celcelis ahaan ilaa 200 oo qof oo shaqaalaha magaalada jooga ka mid ah shaqaalahaasoo isugu jira injineero nijaaro kuuli wastaad foormaan iyo kuwo kaloo aad u fara badan waxaanu leenahay dad supplies oo alaabta isweydaarsanno aanu ka soo qaadanno oo ganacsi fiican naga dhexeeyo magaalada dhexdeeda ah iyagana xoog baanu wada shaqaynaa runtii waxaan odhan karaa waxay ka mid tahay meelaha aadka ugu faraha badan leh ee shaqaalaha magaalada subaxii soo kaca ee shaqo taga ay ka shaqeeyaan shaqaalaha markaan ka hadlo dadka intaa la eg baa ka shaqeeya cadadka intaa la eg ayaa usoo shaqo taga shirkadda Baraka Group Construction Company waana door muhiima oo aan odhan karno waxay ka qaadatay shaqo abuurkii dalka iyo bulshada dhexdeeda xagga bilicda markaan ka hadlo shirkaddu waxay dhistaa guryo runtii aad iyo aad u qurux badan oo la jaan qaadaya moodreenka imika soconaya mar walba casriga soconaya la jaan qaada waxaanu sameynaa guryo runtii attractive oo soo jiidasho leh oo ka wanaagsan xaggii quruxda haday tahay oo ka wanaagsan xaggii tayada haday tahay runtii aad iyo aad baan isaga xil saarnaa xagga quruxda dhismayaashaasi marka laga yimaado quruxda iyo qaabka wanaagsan ee loo dhiso muhiimadda koobaad ee hadafkanu leenahay waxa weeyaan qancinta bulshada customer satisfaction wax la dhahdo inaan sameeyno qofkii wax naga dhisanayay isaga noo noqda xayeysiis ama shirkadda matala oo dad badan oo kale nagu soo xidha horumarka shirkaddu inta laga ay ku tallaabsatayna runtii waxaan odhan karayaa waa mid bulshadayada aanu ka aragnay cid kasta oo wax dhisataana waxay noo noqotay sawir wanaagsan iyo tusaale wanaagsan waxaanu ka helaa feedback aad iyo aad noo qanciya runtii dhismayaashanu sameynaa waxa weeye dhismayaal sida aan hore u sheegay modern oo la jaan qaadi kara
wadanka cimilo ahaan iyo dhismo ahaan waayo wadankeenu waxa laga yaabaa dhismayaasha wadamada kale laga dhisto inuu ka duwan yahay marka loo eego cimilada runtii waxaanu aad iyo aad isaga xil saarnaa xaggii tayada inaanu samayno oo gurigii aanu tayada aad iyo aad uga adkayno oo qurxino dadka nooga dhisanayana runtii aanu aad iyo aad u ilaalino moraalkooda iyo dhismahooda waxaanu samaynaa waxa loo yaqaano contact information oo dadka aanu wada xidhiidhno qof kastoo guriga loo dhisayaa gurigiisii uu la socon karo on time maalin walba halkuu marayo by email uu ka heli karo sawirada guriga maalin walba shaqada laga qabtay aanu noqon karayo qof gurigiisii mar walba meeshuu doonaha jooga ee ula socon karaya sidii mid agtiisa laga dhisayo oo kale shirkadu waxyaabahay caanka ku tahay waxaa ka mida qiimo jaban waxaan kumana kootayno dadka inay qiimaha wada bixiyaane waxaa jira qaab agreemana qof kasta awoodiisa ayaa loola shaqeeyaa qaabkaas ayaanu ula shaqeynaa macaamiisheeda walaal horta waxa weeyaan kolley qof kasta ayoo guri dhisanaya hamibaa ku jira hamigaa ku jiraana waxa uu wataa dream ama guriga qaab uu doonayo baa jira uu ka doonayo design uu leeyahay oo isaga ku sawiran laba nooc baa jira oo dadka qaarna way soo samaystaan designkooda waxay u tagaan meelaha architecture iyagoo wixii nashqadaysan bay noola yimaadaan kadibna waanu u fulinaa annagu ka shirkad ahaan waxaanu leenahay qayb designa oo injineero xagga designka kusoo takhasusay oo u diyaariya dadka noo yimaada runtii waraysi baanu ka qaadnaa baahida ay ka qabaan guriga tusaale ahaan imise qol buu doonayaa dhulkiisa lala soo eegaa waa lasoo cabiraa kow marka la helo cabirka dhulka iyo baahida qofka uu qabo inta uu ka doonayo dhismihiisaas haddii aanu nashqad haysan uu soo diyaarsaday annagaa u diyaarina dhowr dhisayn oo kala duwan gurigii oo 3D oo programs inta lagu sameeyey hadhow toole siduu u eekaanayo oo reala ayaanu u soo sawirnaa dabeetana wixii uu ka bedelayo markaasuu ka bedelaa ama daaqadaha qaar ha ahaato ama albaabada ama wixii uu ku daray ha ahaato iyadoo wixii la faguray oo dhisaynadii la siiyey ayaa marka dambe fulintiina la galaa qaabkaasaan ula macaamilaa shaqaalaha waa tahay gabagabadii maxay tahay fariinta aad jeceshay inaad hawada u marso dadka kaa daawanaya telefishinka qaranka ee ku sugan daafaha dunida runtii aad iyo aad baan wada salaamayaa dhammaan daawadayaasha tv-ga qaranka waxaan halkan aad ugu hambalyeynayaa macaamiisha iyadoo inta badan soo wada shaqeynay iyo inta hamigooda ku jiro inay de nala shaqeeyaan waqtiyada dambe waxaan kale oo soo dhaweynaynaa cid kasta oo xiisaynaysa adeeganu bulshada u qabanno waxaananu ka ballan qaadaynaa inay helaan insha allahu wax garantiya oo noloshooda oo dhan intay joogaan iyo kuwa ubadkoodaba ay u aayaan qurux badan waxaananu dhisi doonaa waxa riyada maskaxdooda iyo maankooda ka guuxaya insha allah saasaan kula dardaarmaya dhammaan daawadayaasha waxaan odhan lahaa horta bahda tv-ga qaranka way mahadsan yihiin shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilanna aad baan ugu ammaanayaa sida wanaagsan ee ay u dhistaan dalkooda hadday noqoto qurbajoog iyo hadday noqoto qolqoljoogba aad bay u mahadsan yihiin shirkaddana kolley waxaan u malaynayaa dee way dad badan iminka waxaanu ugu badanaynu dhisnaa dalka iyo dibaddaba waxaanu dhisnaa oo nala soo xidhiidhaan way ku mahadsan yihiin macmiisha waxaan leenahay soo dhowaada qiimo jaban ayaanu idin haynaa dhismayaal qurux badan oo aad kolley indhihiina ku arki doontaan qaarkiina hore u arkeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan shacabka jamhuuriyadda somalilan iyo tv-ga qaranka ee na soo booqday barnaamijka ganacsiga dhammaan aad baad mahadsantihiin waan idin mahadnaqayaa waad ku mahadsantihiin marka hore salaan baan usoo gudbinayaa dhammaantoodba waxa laaliya wixii daawanaya salaan baan usoo gudbinayaa bacda salaanna waxaan doonayaa inaan diyaar aanu nahay shirkad ahaan inaanu soo dhaweyno waxa laaliya wixii doonaya inay wax dhistaan annakuna aanu si wanaagsan oo maxaan ku idhahdaa raali gelisaan ugu shaqaynayno waxaanu markaa ka codsanaynaa ciddii doonaysa inay wax dhisato inay nagala soo xidhiidho telefoonada iyo maxaan ku idhahdaa website-ka iyo maxaan ku idhahdaa muwaasalaadka aanu leenahay annaguna aanu haddii ilahay ka dhigo si aan ugu shaqayno intaasaan maaragtay kaga baxaya iyagana fariinaanu kugu faraya maxay tahay waxaad odhan karaysid waanu kaga duwannahay shirkadaha kale ee ka jira somalilan waxaanu annagu kolley dee waan nala yaqaanaa waxaanu leenahay dad aqoon khibrad dheer u leh dhismayaasha oo aanu aada u saananay waxaa kaloo aanu ku ballannay inaanu kuna ballan qaadaynaa dadka waxaanu u dhisayno inaanan waxba ka hakranin inaanu dhisno wax
qofka bini aadamka aan u shaqaynayno raali geliya annagana sumcadeeda kor u qaada marka taasaanu annagu u aragnaa inaan waxaan ku faani karna ay tahay waxaanaanu ballan qaadaynaa inaanaan waxaanu dhisayno inaanu ka dhigno wax qofkuna uu maxaan ku idhahday mustaqbalkiisa haddii ilaahay ka dhigo u aayo ubadkiisa dambena u aayaan annagana wax noo tara sidoo kale Saleebaan Aadan Faarax waxa uu ka mid yahay maamulka shirkadda Barako Group Construction Company isna waxaan jecelahay balinan wax ka weydiiyo kaalinta Barako Group Construction Company ay kaga jirto horumarka dalka iyo dhinaca shaqo abuurka. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad baad maasantay marka hore sida wanaagsan aad maratay shirkadda informationkeeda ama macluumaadkeeda aad noo weydiisay ama dhalinyarada ha noqoto ama axmed ha noqoto ama aniga ha noqotee kaalinta ay kaga jirto sida runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay kaalimo aad u muhiima oo qaybo badan leh qayb xagga dhismaha iyo soo kobcday dawaad maqashay axmed baa ku waramay maamulaha shirkadda qaybtaasi waxa la oran karaa de magaalada bilicdeedii marka la eego iyo dhismaheedii iyo quruxdeedii qayb weyn bay ka qaadatay oo marka la eego waa horumarka magaalada iyo bilicda kor bay u qaaday dadkii oo hantidoodii de dhulkoodii gashaday oo aaminay oo dad hantiilayaal noqday oo shirkaddan ka caawisay laga yaabo dadka qaarkood inaanay lacag kaash wada haysanin ay maartay shirkaddu ay wax badan ka caawisay sidii ay wax u dhisan kar lahaayeen oo ay jirto taqdeedu horumarka ka mid tahay shirkaddu ay gaarsay waxyaabaha kale aad ka sida runtii loo taaban karo ee muhiimka ah ee la rabo waliba in lagu daydo ama aad ka loo taaban karo waxa kamid ah shirkadda subaxii waxa ka shaqo taga ama u shaqo taga dad boqolaal gaaraya aad u tira badan way hadalkaagi markii hore waxa ku jirtay matalan taariibayaasha oo kale iyo dhalinyarada oo kale maartay saacaanka dad aad u tira badan baa ka shaqeeya hal guri markaad aragto waxa ka shaqeynaya intaas oo kuuliya intaas oo ustaadiyana kuwii leerka gelinay kuwii biya gelinay xitaa waxa ku farsamo bartay baan anigu oran karaa oo markii ay shirkadu bilaabantay aan ogaa dad ka bilaabay inay ciid qaadaan ama kuuliga waxa la yiraahdo maantana ustaadiin iyo formaano iyo engineering maraya electricianka gelin leerka gelinaya biyaha gelinaya kuwa ka soo bilaabay shirkadda halka ku gaaray wadanku ay shaqo la'aan ka jirto oo taariibtu ay ku badan tahay oo baahi ka jirto waxa la oran karaa waxa ay maalgelin ama ay sida runtii qayb weyn ka tahay in ay dhowr boqol oo qof subax hal subax ay u shaqo tagaan shirkadda taas aan waxyaabahan aad u dareemi karaa bay kamid tahay dhinaca workshop oo kale adiga manager-ka baan filaya marka qaybtaas bal iyadana warbixinaga والله horta qaybtaasi waxay leedahay maamul balaaran maamulkuna uu fidsan yahay oo kuma koobna hal shakhsi kaliya waliba imika waxaan xooga sareeyna xagga dhalinyarada aanu isticmaalo maadaama wixii ay technology isugu urureen oo ay u baahan yihiin in xagga technology-ga hadda maartay lagu casriyeeyo oo lagu maamulo taas maaha mid qof kaliya aan awoodda aan culayska ku saaro takale aanu isticmaalo waxa kamid ah booliska kamid ah shirkadda in aanu talawaad iyo maartay wada tashi aanu ku sameeyno marka workshopka la sameeyo iyo waxyaabaha la midka iyo taasina qayb ka tahay madaxtooyada Burco oo ah guri casri ah oo standard oo si fiican sida arkaysaan loo dhisay oo ay u dhameystirmay dhismihiisu sanadii hore 2014 bishii afraad waxa dhisay shirkadda dhismaha ee Baraka Group Construction Company ayaa dhismaha guriga guud sameysay waana guri casri oo qurux badan oo la jaan qaadaya guryaha ku yaala caalamka qalabaynta hoosena waxa qalabaysay shirkad la yiraahdo Guryasamo ayaa yana qalabaysay si la ajligeed imanka dhismaha sida idin muuqata ama indhihiinaba ku arkaysaan ilaa beriga wax dhibaataayo dambe oo ka soo noqday oo shirkadii kaga soo noqday ama gurigii damage gaaray ma jiro waa shirkad run ahaantii si casri ah u dhistay oo aad arkaysaan oo gobolka wax weyn u soo kordhiyay gurigaasi qurux ahaan iyo manfac ahaanba iyadoo shaqaale tiro badan ay ka howlgaraan guriga maalin kasta iyo wiil kastana ay yimaadaan marti ka socota xukuumadda oo
iyo dadyo kale oo iyana dee ama wasiiro ahaato ama ahaato wafdiga madaxweynaha marka uu soo baxo mar walbana ay shaqaalahaasi u adeegaan martigelinta dadyowga martida ah marka dee guriguna waa guriga casriga ay aragtaan ee shirkadaasi ay dhistay Barako Group Construction Company marka dee waa ilaahay baan ku mahadinaynaa wabillahi tawfiiq waa shirkadii madan aan soo shaqeynay oo macaamiil u ahayn haddana anagu aan wax ka dhisanay oo dabaqan aan ku jiray imka noo dhistay si wanaagsan bay noogu dhistay si wanaagsan baan ugu qanacsanahay daawadayalintaasina waxay inoogu dhan barnaamijkii ganacsiga iyo dhaqaalaha oo toddobaadkani aynu ku soo qaadanay shirkadda Barako Group Construction Company ee xafiiskeeda maamul u yahay magaalada Burco intaynu barnaamijkani mid la mid ku kulmi doono waanigu Maxamed Ciise Aadana Jamaal Axmed Naasir Khadar Cabdi Xaaji Cabdiraxmaan Muuse Cali Sharafle iyo dhammaan bahdii kale nagala qayb qaadatay oo idinkaga taginaa waqtigu haydin wacnaado meel walba oo muuqayagu idinka soo gaarayo Baldugo, daqaanu waa laftii dhabarkee